bini'aadamku ama basharku waxay isku dagaalaan wax micno badan aan lahayn, laakiin xilligaa ay nool yihiin dadka isdagaalaya micno weyn agtooda ka leh. laakiin genereeshinada iyo mustaqbalka soo socda ay jiilasha dambe la yaabaan waxaa micno darrada ee xilligaa laysku dagaalay. waxaa jiri jirtay laba magaalo Bologna iyo Modena la kala yidhaahdo oo dalka Talyaaniga ku yaala 1322 waxay isku dagaaleen wadaan alwaax ka samaysan oo ceel lagaga cabo. Bologna ayaa waxay lahayd ceelka, reer Modena askar ah ayaa intay habeenkii soo guureeyeen ayay wadaantii alwaaxa ka samaysnayd xadeen. markii laga xaday reer Bologna wadaantii aad bay u xanaaqeen, waxayna yidhaahdeen tuulada Modena ma qaadan karto alwaax iyo wadaan iyo dawlis iyo xadhig aanu leenahay, waa inay soo celiyaan. ciidan bayna ururiyeen iyaga oo dagaal ka xiga, una arka inay tahay kibir, dhafoortaabasho iyo daandaansi, mana ogolin bay yidhaahdeen. wixii ay ciidan soo ururiyeen waxaa maqlay nimankii wadaanta alwaaxa ka samaysan xaday ee Modena ka soo jeeday tuulada la yidhaahdo, iyaguna ciidan bay ururiyeen. halkii ay raaligelin ka bixin lahaayeen ee wadaantii celin lahaayeen waxay yidhaahdeen ma annaga ayaa waxaanu qaadnay ciidina odhan kartaa soo celiya, oo ciidan inta naloo ursado nala daandaansan karaa. waaba kibir. dagaal ba'an oo kumanaan qof ku dhinteen ayaa meesha ka dhacay. guushina waxay raacday kuwii tuugta ahaa ee Modena, waxayna ka soo laalaadiyeen wadaantii alwaaxa ka samaysnayd meel deegaankooda ka mid a, iyaga oo u arka astaan xusuus iyo guul mudan in alwaaxa ay hadda ka hor xoog ku soo qaadeen oo laga qaadi kari waaye ku dagaalameen. laakiin hadda waxaa genereeshinadan hadda Talyaaniga ee noole ay u haystaan inay dagaalkii adduunka ugu micno daraa ee Talyaaniga ka dhaca ee labada magaalo ee qabaa'ilada kala degan yihiin ee Bologna iyo Modena dhex mara inay ahayd in la isku dilo wadaan alwaax ka samaysan oo ceel lagaga cabo. waxaan soo xasuustay sheekadii qabaalka ee qabaa'ilada Soomaalida qaar ka mid ah ay isku dagaaleen ee uu Ismaaciil Mirane ka gebi jiray kasi waaye wuxuu waa qabaal waadna kabataane. wax inaga kaliya inagu koobnayn ma ahayne wax caalamka oo dhan markaa ka jira oo jahli iyo micno darro lagu dagaalamaya xilligaa ayay ahayd, oo dadku aanay ilbaxnimo diineed iyo mid maadi iyo mid dhulmarnimo iyo mid bulsho midna aanay lahayn, taariikho qoranna aanay soo minguuranaynin, ee ay yihiin dad iyagu aan isin dhubuuxinayno qabaa'ilo oo ninba ninka kale uu awooddiisa u muujiyo. waa xilli bini'aadamku soo maray. xilliga aynu hadda nool nahay sida Soomaalidu hadda ku dagaalanto kursiga madaxweynaha iyo Afrikaanku ay isinqilaabaan iyo buuqan dunideenna ka jira iyo qabaa'iladeenna cawska isku dagaala iyo kuraastan yar ee odayada baarlamaanka soo xulayaan buuqaya iyo adduunyadu way soo martay. alwaaxa hadda halkaa ka laalaada waa kii ay isku dileen Bologna iyo Modena. waxay noqotay calaamad fool xun. waxaa iman doonta dadka Soomaalida ee hadda nool waxa ay ku dagaalamayaan mustaqbalka genereeshinada soo socda inay la yaabaan micno darrida ay Soomaalidu xilligan hadda jooga ku dagaalamayaan ee ah qofkii madaxweyne loo dooran lahaa ayaa aynu ku dagaalanaa oo waxaa ku dhinta boqolaal iyo kumanaan. hadda waxaynu maraynaa dhowr iyo 30 sano ama intaas oo sannadood oo aynu ku heshiin la'nahay war qofka madaxweynaha loo doorto dhowrkii sanaba inta la doorto isaguna si cadaalada waxa uu xukumo oo uusan qabiilkiisa u badinin, dad aan aqoon lahayn ayuusan ka soo buuxin boosaska dadka aqoonta iyo khibradda iyo mas'uuliyadda ha lagu xulo. iyo maya annagoo reer hebel xoog ku haysanayna qofkaanu doonana waxbaanu ka dhigaynaa madax, qofkaanu doonana waxbaanu siinaynaa, dastuur iyo sharci uma eegayno, ma annaga waxaanu doonayna naloo diidi karaa. ciddaanu doonaanu laynaynaa, ciddaanu doon wax siinaynaa, yaa nala hadli kara annaga. laandheere halkaasaan deganahay, kumanaan qof baa ku dhimanaya wax aan waxbaba ahayn. waxaa hubaala dadka caqliga leh Soomaalida ee hadda nool inay la yaaban yihiin waxyaabahan lagu dagaalamo. mustaqbalka dambana genereeshinada soo socda inay sidaa Bologna iyo Modena ay isku dileen wadaanta alwaaxa ka samaysan ee micno darrada ay kumanaanku ku dhinteen ee boqolaalka sano colaaddu ay dadka isu daba socdeen, in sidaas oo kale ay dadkeenna mustaqbalka dambe dhalan doona ay ula yaabi doonaan Soomaalida hadda joogta
dhaqan xumida